برنامج المحكمة لها يعني لما جعليه طبعا وناق بدر وكياني وناق الأمة الصومالية لما جعلين waxaan ognahay maartay caalamka inuu iskaashaday oo la go'aansaday in lagu soo duulo maxkamadaha Soomaaliya la qabsado ayadoo loo yani hormuud looga dhigay Ethiopia oo dabcan hadafka ay lahayd Soomaaliya in ay qabsato caalamkan uu ku caawiyo in Soomaaliya qabsato halkaasna waxa la yiraahdaa Soomaaliya dhulkeeda waxa Ethiopia ila wareegto waxaan ognahay cadawga in maxalida uu soo galay marka cadawga uu soo galay maxkamadaha go'aan ay gaareen waxay dabcan cadawgan cadaw xoogan oo adduunka iskaashaday maxkamadaha waxay go'aansadeen cadawgan aan lagula dagaalamin magaalooyinka iyo shicibka yani dhaxdiisa dhibka ka imaan kara la qiyaasay in aan lala dagaalamin cadawga si toos ah oo aan laga hortagin si loo badbaadiyo magaalooyinka iyo shicibka laakiin markasta maxkamadaha qorshay lahaayeen in ummadda ay iskaashato isna daafacdo laakiin la bilaabo dagaalka iyo muqaawamada markii cadawga maxalida wadanka uu fariista markaas uu fariisamihiisi la ogaado xoogiisana la qiimeeyo xoogiis waa la qiimeeyay fariisamihi maxalida ay fariisan lahaayeen markay tageen 10 maalmood kadib waxaan ognahay in muqaawama ay bilaabatay oo ilaahay fadligiis maanta 95% Soomaaliya in xor ay tahay oo cadawga laga xoreeyay cadawga iskaashaday oo Ethiopia ugu horeysay maanta ummadaas in laga xoreeyay oo goobo yar ay ku soo hareen dabcan waxaan ognahay oo dhowr su'aalo halka la weydiiyay oo ay ka mid tahay maartay khilaafka ku yimid muqaawamada iyo isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliyeed waxa weeyaan dadka waa iskhilaafaan waa bini aadan laakiin waxa la doonayo waxa khilaaf markuu dhaco si degdeg ah in maxalida halka ay wax ka qaldameen maxalida markaas la qiimeeyo sidii wax u qaldameen in la qiimeeyo isla markaasna khilaafka degdeg loo xaliyo ayadoo waxba aan haba yaraatay yani daahir la'aan in loo xaliyo garbaha maxalida yani isbahaysiga oo yani iskhilaafay waxaan yani leenahay maartay ilaahi subhanahu wa ta'ala ka baqa ummadana jahawarka ka saar isku tanaazul waxa weeyaan yani ummadaas waxa la rabaa maartay in maanta badbaadi u baahan tahay in la iskhilaafo oo maxalida mashaakilka lagu sii abuuro oo baahno muqaawamada gudaha waxaan leenahay ilaahi fadligiis yani sharafka yani Allah kaana subhanahu wa ta'ala cadawga saas loogu jibiyay waxaan u sababahay maartay muqaawamada ragii maxalida safka hore geeyay naftooda waxaan leenahay ragaas ha ilaaliyaan midnimadaas wax lagu keenay ilaahi subhanahu wa ta'ala raali kama aan khilaaf midnimada ha ilaaliyaan iskaashadaan cadawga hadda maxalida waajibay iskhilaafadu waxay keenaysaa cadawga inuu farxo ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu ka caroon ma artay muslimiin iskhilaafay marka khilaafka waxaan oran lahay ma artay yani muqaawamada inay iskaashadaan safkaas midnimadiisa la ilaaliyo insha Allah waxaa su'aal kale halka yani lay weydiiyay maxkamadaha inta ay jiraan maxaa qaldamay maxkamadaha dabcan yani marka hore sidaan sheegay degdeg ku bilaawdeen dadkii ummadda haystay inay maxalka ka dul qaadaan ayay wax ku bilaabeen barnaamij siyaasadeed ma ayn lahayn laakiin marka dambe wadankii oo dhan taladiisa ayaa ku soo fakatay barnaamijka siyaasaddu isku bedelay amniga waxaa raacay siyaasad waxa la wixii la qaban karna waa la qabtay xaq amni iyo xaq siyaasadeedba laakiin qaladaadna way jireen qaladaadkaas waxa weeyaan dabcan yani qaladaad lagu talagalay ma ayn ahayn laakiin waxa qaladaad ku dhacay maartay yani khibrad la'aan waa dabcan yani bini aadanka yani markii uu khibrad yar yahay waxyaalo badan ka qaldamay karo waa la qaldamay laakiin waxaan islaama artay maxkamadaha hal la eego wax inta ay saxaan hal la eego yani inta ay qaldeen waxa waa ilaahi subhanahu wa ta'ala yani kulligeen cafis ayaan ka weydiisana laakiin waxa ay saxaan alxamdulillah waxa waa Soomaaliya taariikhdeeda intaas wax qabto wali lama helin su'aasha ugu dambaysa oo halka la igu weydiiyay waxa ay tahay burcad badeeda jahawareer ku hayso xeebaha Soomaaliyeed burcad sidaan ognahay maxkamadaha intii ay joogeen way xaliyeen arrintaas maxkamadaha intaan imaan ka hor 6 bilood ka horeysay waxa weeyaan waxa jiray 40 afduub ee maraakiib ee xagga Soomaaliya ka dhacday 6 bilood maxkamadaha ay joogeen waxa weeyaan hal afduub ayaa ka dhacay marka maxalida markaas ugu qafaashay halkaas markaasna maxkamadaha ciidankooda ayaa badweynta ugu tagay nimanka burcad badeed ahay halkaas ay ka soo qabteen marka kan ka sii daayeen ayagana waxa yani waa sharciga la marsiiyay dabcan burcad badeed dabcan waxay tahay laba qayb waxa weeye burcad badeed adduunka kala ka timid oo Soomaali shaqo aan ku lahayn kuwaas oo maraakiib waaweyn oo ku xadgudba Soomaaliya badaheeda oo sun ku daadiyo
kalluunkii maxaa la yidhaha Soomaaliya kheyraadka kale maxaa la yidhaha ku qaato fasax la-aan ku xadgudba badda Soomaaliyeed doomanka dadka Soomaaliya ay ku kalluumaysanayeen iyo shabaqyadooda intaba in maxaa la yidhaha ay jijibiyaan oo baddiiba iyaga loo daayo dadka Soomaaliyeed haba yaraatee ay ka kalluumaysan waayaan baddooda intaa markay dhacday dabcan dadkii Soomaaliyeed oo kalluumaysanayay intay iskaashadeen ay dabcan iyagana bilaabeen ma aragtay waxa la wixii markaas ay qaban karaan inay qabtaan iyo dad kaloo ka faa'iideysanayo sharci darre maxaa la yidhaha barnaamijyo sharci darre halkaa yani iyagana ka bilaabay marka baddii oo dhan fawda noqotay maxaa tale isoo loo xallin karaa maadaama hore aan u xallinay oo maxkamadaha barnaamijkaas burcadbadeedda ay xalliyeen ayagoo wax musaacade aanan ka helin caalamka waxaan is leenahay haddana khibrad ka badanna waa leenahay waana xallin karnaa deg deg laakiin beriga Soomaaliya oo aan la xallin badda Soomaaliya ma xalismayso caalamku waxaa leenahay Soomaaliya in faragelinta laga daayo ummadda Soomaaliyeed loo daayo sida ayaga ay rabaan inay isku maamulaan sida ayaga maxaa la yidhaha dowlad ahaan ay u arkaan in maxaa la yidhaha dowlad ay u samaystaan intaa haddii maxaa la yidhaha loo daayo waxaan is leenahay dowlad oo dhan yahay ay halkaa ka imaan karto oo xallin karto mashaakilka Soomaaliya berigeeda iyo baddeeda ka taagan Oh,